kale waxaa la furtay Sicily oo ah jasiirad ku taala koonfurta dalka Talyaaniga. Xilligaas waxaa ka talin jiray boqortooyada Byzantine. Bilowgii hore waxaa jiray isku day fara badan ay Muslimiintu sameeyeen balse maysan ku guuleysan furitaankeeda. Xilligii ugu horeeyay ee lagu guuleystay dhamaystirkeeda waxay ahayd waqtigii dowladda Cabbaasiyiinta. Intaysan Muslimiintu furanin ka hor waxay ku sugnayd xaalad xun, taasna waxaa tilmaamay taariikhyahanada Talyaaniga uu ka mid yahay Michel Amari iyo ardaygiisii Francesco Gabriel. Fikradda furashada Sicily waxay Muslimiinta ku dhalatay markii axwaasha jasiiradda ay isbedeshay. Boqorkii Byzantine Mikhail wuxuu taliye ahaan ugu magacaabay Sicily nin la yiraahdo Constantine. Laakiin Constantine ninkuu u magacaabay taliyaha ciidanka badda oo la dhihi jiray Fehmi wuxuu ahaa nin adag, diiran, ficiltan badan, hami weyn leh. Fehmi waxaa ku dhacay mashaakil guur iyo jacayl iyo arrimo saas ah. Kadib Mikhail oo ah boqorka boqortooyada wuxuu amar ku siiyay Constantine inuu dilo Fehmi. Fehmi warkaas markuu maqlay wuxuu inqilaab ku sameeyay Constantine wuuna dilay. Kadib wuxuu iclaamiyay inuu yahay boqor uuna ka go'ay boqortooyada Byzantine. Kadib Fehmi wuxuu bilaabay inuu soo weeraro Tunis, Muslimiintana qafaasho, laakiin ciidankiisii nin ka mid ah ka soo horjeestay oo la dagaalay. Fehmi wuxuu u soo cararay Muslimiinta wuxuuna ka soo dalbaday gargaar. Halkaasna waxaa ka dhalatay fikradda furitaanka Sicily. Waxaa la diyaariyay ciidan dhan 10,700 oo fardooley ah. Waxay soo raaceen tiro ka badan 100 doon, waxayna u soo baxeen jasiiradda Sicily. Bilowgii hore dagaalku wuu cuslaa, si tartiib ah ayay u furteen magaalaba magaaladay ka horeyso. Sidaas ayay Muslimiintu ku furteen. Ilaahay ha u naxariistee hogaamiyihii ciidanka Muslimiinta Asad bin al-Furaat wuxuu u dhintay cudur kula dhacay Sicily. Muslimiinta markay galeen way hormariyeen. Xilligaas ayaana lagu qoray taariikhda horumarkii Sicily. Muddo 2 qarni ah ayay Muslimiintu xukumayeen ilaa markii dambe ay Romaaniyiintu qabsadeen. Halkaas ayay ku egtahay xalqadii caawa. Kulanti dambe xiiso leh. Ku taageer Zainab Channel, subscribe, like, share and comment.